بسم الله. waxaan u arkaa waxaan waxba ka jirinin saxna aan ahayn waayo inagu waxaan sheeganaa dawlad Puntland la yiraahdo waxaan leenahay nidaam iyo system waxaan leenahay shuruuc oo ugu mudan yahay dastuurka waxaan anagu gaar u siireenahay hadaan golaha baarlamaanka nahay xeer hoosaadka golaha mar hadaanu labada midna waafaqsanayn waa xaaraan waxna kama jiraan laakiin mana ansaxayo labadaba way soo waafajiyeen sida muuqatay oo waxay soo bandhigeen qodobo dastuuri ah sida ay sheegayaan iyo xeer hoosaadka adigu inaad jabis ma jirto xeer hoosaadaan jabiyeen ma jiro golahayga si smooth ah shaqadiisu u socotay tii shalay u dambeysay smooth bay ahayd gudoonkayga la tashanaya harayga fadhiyay golahan kala tashanayay wax la wada qaatay bay ahaayeen waxa marka la ogaado qofku wuxuu sheegto maaha waxaana kala saaraysa inuu xaq yahay iyo inuu xaaraan yahay waxa ay ugu qoran dastuurka iyo xeeroosaadka qaab aan xilka ku waay karo ma laga hel laga waa haddii laga helo waa okay xaqmo noqonaya haddii laga waayo waxaan waxba ka jirin weeye nala gowracna xalaalna maaha soomaad garanin anuu sifa sharciyaan ku yimi sifa sharciyana waa ku tegaya laakiin xildhibaanadii shalay ku doortay baa maantana gacanta taagay anu goobjoog baan ka ahaa marka maxaad ka leedahay qaabkii iyo processkii ma ahayn xildhibaanada culays baa la saaray lacag baa la qaybiyey xalay oo xataa aan la xishoonaynin soomaad garanin oo waxa weeye $30,000 baa la bixinayay cid ciyaalka magaalada og soomaad garanin maaha marka sifa sharciya hadday sifa sharciya tahay waxa weeye waxaa la soo mari lahaa shuruucda dalka ma fahamtay kabacdina markaas sifa sharciya laga bilaabi lahaa waxa laga bilaabi lahaa waxa weeye qofkani wuxuu jabiyey qodobada marka leeyahay qofku uu jabiyana waa in xaqaa'iqooda iyo dalaa'ishoodii la hayaa simbali marka qofka hadduu jabiyo qodob waxa weeye waa wuxuu ku mutaysan karo inuu xilkiisa ku waayo xilli dhexo adigu laftigaagu aad tartantay Said Xasan Shire sidaasoo kale xilka looga qaaday adiguna goobjoog ah ka ahayd qodobadaasoo kale waa lagu soo eedeeyay kadibna Said waa iska baxay Said wuu baxay wuuna hadlay aniguna maanta waan hadlaya adiga wareysanaya waa laga yaabaa hadalkeeduna kala duwanaado laba qof baan kala nahay anigu qaabka aan maraya qaab sharci aan maraya aduu sifa sharci aan maraya meesha aan tagi doonaa waa meesha munaasibka u ah meesha doontaba ha noqotay halka munaasibka u ah ayaan tagi doonaa iyadaan mari doonaa iyadaan geysan doonaa halkaasuu marka waqtiga doontana ha qaadato haddii laakiin mar kale ay baarlamaanku ay fariistaan oo ay kuu sheegaan inay sifa sharciga ku mareen saaxiibada ay ku yimaadaan kaa qanciyaan maxay ugu qancin karaan dee hadday qanciyaan waa tisala rabaa isqancintu ceebee ma timaadeen